waxaa jiri jiray wiil iyo aabbihiisa iyo xaaskiisa iyo wiil uu dhalay ayaa gurigooda noolaa. wiilka xaaskiisa aad ayay u nacbayd aabbaha wiilka dhalay. qoysku wuxuu ahaa mid farxad ku dhisan marka laga reebo aabbaha oo gabadha sodonka u yahay oo mar walba si xun ula dhaqmaysay. aabbihii mar walba wuxuu arkaa gabadha wiilkiisa qaba oo si xun ula dhaqanta, afxumo, qaylo. aabbuhu wuxuu ahaa mid waayeel ah, wuxuuna u baahnaa daryeel joogto ah, laakiinse ma uusan helin intii uu u baahnaa. wiilka xaaskiisa waxa ay ka dalbatay aabbihiisa in uu geeyo meesha dadka waayeelka lagu xanaaneeyo. wiilkii waa uu ka oggolaaday. wiilkiisa ayuu ku dhahay, aabbo ina keen awood u soo qaad 1 barkin. wiilkii yaraa wuxuu soo qaaday 2 barkin. wiilkii aabbihii ayaa dhahay, waa maxay 2dan barkin? aniga soo kuma dhihin 1 barkin soo qaad. wiilkii yaraa wuxuu ugu jawaabay, aabbo midda kale adiga ayaan kugu talagalay si aan beri markaaga kuu keeno. wiilkii waa uu yaabay, isla markiiba dib ayuu aabbaha guriga ugu celiyey. xaaskiina aad ayay ula yaabtay waxa dhacay. ogow waxa aad maanta samayso in ay beri ku sugayso.